Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena xogta dalka. Qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona muxuu yahay sooyaalkii madoobaa ee farmaajo inta uu xilka uu joogay iyo lacagaha uu dhacay. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo niyadda u dejiyay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Qoorqoor xarunta gaadiidka booliska ee muqdisho oo si la yaab leh qaraxyo loogu weeraray. Mareykanka oo dib u bilaabay duqeymihii Soomaaliya ee xubnaha ay dishay. Madaxweynaha Jubbaland oo wada qorshe oo mar kale xoog uu kula wareegayo gobolka Gado ayaan warkeena kusoo qaadan doonaa. Haddaba daawade haddii aad janaalkeena xogta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena like, share iyo commentiga noogu dadaala. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warka janaalkeena xogta dalka. Daawadayaal, muxuu ahaa sooyaalkii madoobaa ee madaxweyne Farmaajo inta uu xilka uu hayay iyo lacagaha uu lunsaday? Farmaajo waxa uu shacabka masaakiinta uu ku dhacay qaab qaran iyadoona uusan celin wax xisaab celin ah inta uu dalka uu joogay. Inkastoo dowladda dalka Qatar lacaga fara badan ee farta ay ka saartay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, haddana dadka darsiya siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay si weyn uga hadleen muddada uu xilka uu hayay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in uusan hal mar xataa uusan sameynin xisaab celin, taasi oo dowladdiisa ay noqotay dowlad aad dhibaato badan u dhexgelisa shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu dagaal siyaasadeed uu ku galay dakhliga gobolka Banaadir, waxa uu lacag badan ka sameeyay canshuur xad dhaaf ah oo dekedda Muqdisho laga qaado iyo koox ay u sameyso markasta in lacaga ay u soo aruuriso. Farmaajo intaasi kuma filno, maanta ayuu rabaa in uu mar kale uu dhaco shacabka uu shalay siyaabaha kala duwan uu usoo dhacay, waxaana uu mashruuca cusub kaliya uu noqonayaa mid uu doonayay in uu mar kale uu dadka shacabka dhibaateeyo. Kow, waa in uu daboolaa wixii hanti Soomaaliyeed uu soo dhacay. Labo, waa in uu hanti cusub uu kasii dhacaa ummadda oo dhibaatooyin abaara haysta waqtigan. Haddaba waxaa si weyn dhibaato u ah iyadoo haatan dalka abaar xoogan ee ka jirto, islamarkaana uu Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo qasnadiisa ee lacag fara badan ay ku jirto. Hadda waxa uu muuqanayaa in uu ka gaabinayo islamarkaana uu indhaha uu ka daboolanayo dhibaatooyinka abaaraha ee dalka ka jira iyo dhibaatooyinka kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee haatan qabaan. Madaxweynaha dalka oo markasta looga baahnaa inuu samata bixiyo dalka, islamarkaana si weyn looga baahnaa in uu u istaago sidii bulshada Soomaaliyeed abaaraha kala duwan haysta looga saari lahaa. Laakiin taas intuu madaxweynaha Farmaajo dalka ka ahay ma uusan daryeelin shacabka, waxna uma uusan qaban. Inkastoo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haatan 25 milyan oo dollar uu doonayo in uu guryo ku dhisto, islamarkaana uu si weyn qarash badan ugu bixiyo in uu noloshiisa mar kale uu kor u qaado. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa madaxweynaha kaliya aan waxba u qaban shacabka Soomaaliyeed inta uu dalka uu ku sugnaana dhibaatooyin fara badan oo si weyn loo wada xasuusan doono uu dalka uu geliyay. Dhanka kalena daawadayaal, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qalbiga u qaboojiyay madaxweynaha maamulka galmudug. Madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horeysay si cad uga hadlay in uusan dooneynin in uu burburiyo maamul goboleedyada dalka. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyay munaasabad lagu soo dhaweynayo ka qabsoontay Dhuusamareeb ayaa waxa uu si cad u sheegay inuu Qoorqoor uu soo laaban karo haddii ay dadkiisa raalli ay ka yihiin oo aysan dagaal ku ahayn dowladda cusub. Waxaana uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in uu markasta diyaar u yahay sidii maamul goboleedyada dalka hore ugu sii socon lahaayeen. Inta badan waxaa iska cad in madaxweyne cusub haddii uu dalka u yimaado in madaxda maamul goboleedyada qaar gebi ahaanba meesha laga saaro. Inkastoo Axmed Qoorqoor uu ahaa saaxiibka dhow ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, horeyna si weyn uga soo horjeeday nidaamkii iyo qaabihii ay wax ay ku raadinayeen mucaaradka, waxaa taasi haatan ay u muuqanaysaa in cabsi xoogan ay qaar badan oo madaxda maamul goboleedyada ay soo wajahayaan. Waxay ka cabsi qabaan in buuq fara badan ay galaan, islamarkaana culays xoogan ay kala kulmaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Inta badan waxaa si caadi ah u dhacda in haddii madaxweyne cusub uu dalka u yimaado in isbedel uu ku sameeyo dhammaanba madaxda maamul goboleedyada dalka. Markii aan fiirino Farmaajo markii uu madaxweynaha dalka uu noqday, waxaa la bedelay Cali Cabdullaahi Cosoble, waxaana
waxaana madaxweynaha maamulka Hirshabelle noqday Maxamed Cabdi Waare. Sidoo kale Maxamed Cabdi Waare ayaa la bedelay Cali Guudlaawe ayaa madaxweyne ka noqday maamulka Hirshabelle. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa daaqada laga saaray waxaana la keenay Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftigareen. Si la mid ah maamulka Galmudug waxaa asna hawada ka baxay madaxweynihii hore ee maamulkaasi Axmed Ducaale Geele Xaaf waxaana meesha la keenay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu isku dayay in uu daaqada ka saaro Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe laakiin taasi ma aysan u suuragelin oo waayo Axmed Madoobe ayaa si weyn uga soo horjeestay. Dhanka kale Puntland ayaa iyana la weeraray iyadoona qaab siyaasadeysan ay isku dayeen kooxdii hore ee Villa Soomaaliya nabadii nolol in ay meesha ka saarto kooxaha sida weyn siyaasadooda uga soo horjeeda. Inkastoo Dani uu si fudud ugu soo baxay haddana muusan ku qanacsaneen kooxdii hore ee Villa Soomaaliya. waxay isku dayday in Siciid Dani u adeegsato baarlamaanka maamulkaasi laakiin Siciid Dani ayaa waxa uu gebi ahaanba mooshin iyo sidoo kale qarash badan uu ku bixiyay in uu meesha uu ka saaro gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaasi Puntland taasi oo caqabado badan ay ka dhacday Puntland. Sidoo kale waxaa si weyn haatan loo hadalhayaa meesha ay mari doonaan qaar badan oo taageersanaa nidaamka farmaajo. Dhanka kalena Mareykanka ayaa dib u bilaabay duqeymihii Soomaaliya iyadoona xubno fara badan ay dileen. Taliska ciidanka Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa shaaciyay in ay iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda Soomaaliya ay duqeymo ay ka fuliyeen deegaanka Beeraxaani ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo lagu beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab. 5 xubnood ayaa la xaqiijiyay in duqeyntaasi lagu dilay isla markaana ay qasaare kala duwan ay soo gaareen dadka halkaasi ka agdhawaa. Duqeyntani waxa ay dhacday Jimcihii shalayto ahayd xilli xubno ka tirsan Al-Shabaab ay isku dayeen in ay weerar ay ku qaadaan ciidamada qaranka iyo sidoo kale kuwa la howlgalaya. Waxay tani u muuqanaysaa in durbaba ay bilaabeen Mareykanka duqeymihii ay ka wadi jireen Soomaaliya. Beeraxaani oo 40 kiiloomitir u jirto magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa inta badan ka dhaca dagaalo iyo weerar kala duwan. Dhanka kalena daawadayaal warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xarunta gaadiidka booliska ee Muqdisho oo si la yaab leh qaraxyo loogu weeraray. Xarunta gaadiidka booliska ee degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa si la yaab leh loogu weeraray qarax lagu tuuray erida hore ee xaruntaasi oo ay degan yihiin booliska Soomaaliya. Qarax oo ahaa bam gacmeed ayaa waxaa laga dhex tuuray mid ka mid ah 3 bajaaj oo hab farsamo cajiib ah u adeegsanaya fulinta qaraxa oo lagu dhuftay erida laga galo xarunta. Kooxda qaraxa geysatay ayaa saarneed bajaaj ayaana waxay soo daba dhigeen 3 mooto bajaaj si aanan looga aqoonsan midda laga dhex tuuray maadaama xilli habeen ah ay ahayd. Inkastoo mararka qaar Muqdisho ay ka dhacaan falalkaasi haddana booliska Soomaaliya wax war ah aysan ka soo saarin. Guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal wanaag inta haddaba daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena leega shaarka iyo commentiga noogu dadaala waad mahadsantihiin. Nabadgelyo.